الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta waxaanu ka hadlaynaa sida ardayda naga soo dalbadeen sunflower-ka marka sunflower-ku muxuu yahay sunflower-ku wuxuu ka mid yahay geedaha la yiraahdo oil plants-ka ama oil crops-ka ayuu ka tirsan yahay marka waxaan galeynaa marka faahfaahintii kow outline-kiisa waa inaan ogaanaa marka outline-kiisa meequu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay kow what is sunflower sunflower maxaa la yiraahdaa sunflower waxa lagu magacaabo ayaanu kow ka hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa haddana markaanu ka hadlayno taariikhiyan intuu ka yimid propagation-kiisa qaabkee loo baahiyaa qaabka loo badiyaa geedkan marka qaabka loo badiyaa waxay leedahay requirements planting ay leedahay iyo general care oo ah daryeelkiisii markaad geedkii daryeesho oo dee aad koriso oo waqtigiisii siiso oo life cycle-kiisii qaato waxaad u baahan tahay inaad harvesting ku samayso ood gurato markaad guratid kabacdi waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho marka isticmaalkaas marka aad soo gaarin ka hor waxaad u baahan tahay inaad disease-kii ka daryeesho oo cuduradii ka daryeesho marka cuduradaas marka maadaama ay qaybta dambana ay ku jiraan oo markaad juiceska ku samaysanayso oo storage-kii iyo wixii aad gelayso aad u baahan tahay gadaalan waxaan geynay disease-ka sida daraadeed oo ugu wareerin oo haba dhowr meelood ay disease ka soo galay marka sunflower marka waxa weeye waxa lagu magacaabaa Helenius anusa la yiraahdaa waxa loo yaqaanaa bahalkiisa ah family-giisa ama qoyskaas uu ka tirsan yahay wuxuu ka tirsan yahay oo kale herbaceous animal plants uu ka tirsan yahay ama annual plants geedaha xillilaha ama sanadlaha annual waxa waa xilliga 6 bilood iyo wixii ka yar marka family-giisu waa Asteraceae la yiraahdaa waxa laga beeraana seedka ayuu ku kordhaa macnaha lagu badiyaa macnaha propagation-kiisa waxa lagu sameeyaa seedka wuxuu leeyahay highly erected stem wuxuu leeyahay sal adag oo toosan ayuu leeyahay oo waxa la timatimo leh ama waxa shay ay ka muuqdaan xaad ka muuqato taasoo marka inuu kor u kaco oo dheeraado iskii shay sameynaya ama maskaxdiisu madaxiisu ama qaybtiisan hore inay warwareegto u suurto gelinayo marka idkan wuxuu leeyahay madax weyn oo leeyahay iyo caleemo kuwaasoo u habaysan si alternative ah ama laanta ugu yaala si kala horeysa alternative waxa la dhahaa inuu qaybtan ku yaalo qaybta kalena oo wax yar ka sareyso ayaa la yiraahdaa alternative marka on stemkaas taagan ayuu leeyahay asagu laan gees u baxda malaha wuxuu leeyahay smaller macnaha wuxuu leeyahay smaller narrow upper leaves macnaha smaller narrow upper leaves wuxuu ku leeyahay waxyaabo yar yar ayuu wuxuu ku leeyahay upper leaves oo ah xididseedo kuwaas ku dhagan individual of stem geedka salkiisa si hal ugu dhagan ayuu leeyahay marka sunflower head-kiisa ama madaxiisu wuxuu la eg yahay 10 ilaa 30 cm uu la ekaada ama 4 ilaa 12 inji sida u taqaan marka diameter-kiisa la fiiriyo waa madaxa hore oo miruhu ku yaaliin oo muuqda marka wuxuu sameeyaa marka kiisa 16 macna 16 ilaa 30 individual flores ku jirta macnaha qaybaha yar yar oo gudaha uga sii jiro sheegaya ayuu leeyahay marka intaan waxa waaye wuxuu faahfaahinayaa ama sii faahfaahinayaa inta feed oo dhulka ka kacsan yahay inta iyo meesha uu ka baxo oo asal ka yimid oo ah North America ama waqooyiga America ayuu asal ahaan inuu ka soo jeedaa la sheegaa marka intaas ayaan waxaan uga tegaynaa geedkan waxa uu yahay oo sunflower-ka
ka taariikhdiisa aan gudbaynaa sidaan horeba kusoo sheegnay qaybtii sunflower qaybtiisii dambe sidaan kusoo sheegnay waxa waaye sunflowerku wuxuu kasoo jeedaa America waxaana la xanaanaystay 1000 sano ka hor taariikhda BC-ga waxaa la beertay marka si valuable food source for countries wadamo badan laga beertay marka oo ay kamid tahay Europeanka markii ay lagu sameeyay explorationka oo dadkan kala duwan ay degeen ayay marka dhaqan ahaan ay u beerteen sidoo kale waxaa loo beeraa in lagu sameeyo meelaha qurxinta asbiidka loo isticmaalaa weed substances ku kamid marka xilliyada marka Yurub la degay ayaa waxay bilaabatay in lagu sameeyo dadkan kala duwan oo Yurub in dhaqamada kala duwan ay imaadeen ayaa dada waxay u isticmaaleen dhulkaas yimid waxay u isticmaaleen ama bilaabeen inay u isticmaalaan asbiid maadaama uu leeyahay madax qurux badan oo fiid aad u qurux badan oo ku taalo oo raacaya haba sida sunflower loogu yiraahdo oo jecel yahay inuu markaas qoraxda ka daba jeesto ilaa uu geedku ka noqdo geed weyn oo wanaagsan oo ka noqdo oo mirihiisa ay ka soo baxaan wuxuu raacaa qoraxda dhinac walba marka cashirkanaga qaybtiisa koobaad waxaan ku soo gabagabaynaynaa halkaas waxaad la socon doontiin qaybihiisa kala duwan ku xirnaa Beeraha TV si aad uga bogato barashada cilmiga beeraha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.